kusoo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka qodobada wararkeena ugu waaweyn waxa ay kala yihiin dawladda Soomaaliya ayaa daahfurtay manhaj cusub iyo waxbarasho dugsiga hoose oo bilaash ah taasoo ay ka faa'iideysan doonaan ku dhawaad 15,000 oo arday ah warbixin dheeraad ayaanu idinkaga haynaa warar kale caawana waxa kamid ah ninka uu madaxweyne Trump u magacaabay maxkamadda sare Brett Kavanaugh oo fadeexad faraxumeyn lagu soo eedeeyay dooniyo dalxiis oo badda dadka ku soo wareejiya ayaa qayb ka ah qorshaha dawladda Soomaaliya ay ku soo jeedinayso dalxiisayaasha dooda caawana waxaanu ku eegi doonaa dhibaatooyinka haybsooca iyo cunsuriyadda dhaqanka Soomaaliyeed ku jira sidee lagu xallin karaa maxaase laga qabtay si dhaqankaasi loo joojiyo kala soco BBC News Somali telefishinka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawiya caalamka habeen wanaagsan daawadayaal waaniga maxamed cabdi xaraare oo idin la socodsiinaya barnaamijka caawa aynu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta shaaciyay in manhaj cusub la diyaariyay laguna bilaabay ilaa 24 iskuul oo ay dawladdu kala wareegtay dad shakhsiyaad ah oo maamulayay manhajka diyaarintiisa waxa uu soo bilowday 2013 sidoo kale waxa la sheegay in waxbarasho bilaash ah ay helayaan ilaa 14,800 oo arday ah oo dhiganaysa 24 kaas iskuul madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ka hadlay munaasabad lagu soo bandhigay manhajka hadaladiisina waxa kamid ahaa isaga oo yiri waxbarashadu waa xuquuq asaasi ah waana waxa uu dastuurku farayo wuxuuna yiri waxaanu fulinaynaa in xuquuqdii waxbarashada caruurta Soomaaliyeed dib loo soo celiyo hadaba waa maxay muhiimadda manhajka cusub iyo waxbarashada bilaashka ay helayaan ardayda dugsiyada hoose Ahmed Xaaji Xasan ayaa warkan ka soo diray magaalada Muqdisho manhajkan wuxuu muhiim u yahay mideynta waxbarashada dalka oo muddo kala qaybsanaa maadaama caruurta tan iyo burburkii wax lagu barayay manhaj kala duwan oo qaarkood laga keenay dalalka Carabta iyo kuwa manhaj laga keenay ee dhanka dalka Kenya marka waxay u baahanaysaa oo kaliya in macallimiinta oo baran loo helo ardayda si fiican loo baro maadaama ardayda ay wax ku kala baran jireen Carabi English iyo af Soomaali manhajkan hadda waxa uu ku qoran yahay af Soomaali marka waxa suuragal ah in caqabad badan kala kulmaan ardayda aan u diyaarsaneyn in af Soomaali wax ku bartaan oo luqado kale wax ku sii baranayay hadda fasalada dhexe sii maraya marka manhajkan wuxuu isugu jiraa dugsiga hoose dhexe iyo dugsiga sare oo dawladda ay soo bandhigtay dhammaan daraasaadkii iyo casharadii loo baahnaa ayaa lagu baranaya sidoo kale waxay dawladda suuragal in caqabad ka wajahdo sidii dalka loogu baahin lahaa manhajkan oo wadanka dhan uu u gaari lahaa dhammaan iskuulada uu u gaari lahaa hadda waxa lagu bilaabaya 24 iskuul oo dawladda lagu wareejiyay oo ardayda dhigta oo la sheegay inay tiradooda gaaraysa 14,800 oo arday ay waxbarasho lacag la'aan heli doonaan waxayna arintaasi ku noqonaysaa dhibic yar oo bad ku dhacday oo kamid ah ardayda guud ee wadanka dhan ee waxbarashada u baahan wahagaag Washington DC waxa ka socda go'aan laga xaajoonayo in la ansixiyo garsooraha maxkamadda sare Brett Kavanaugh kaasoo uu magacaabay madaxweyne Donald Trump haddaba dhageysigu waxa uu ku bilowday marqaatiga gabadh sheegtay in uu farxumeeyay sanado badan ka hor mar ay wada dhiganayeen dugsiga sare waxay tiri sidan ayay wax u dhaceen mar ay doonaysay in ay isticmaasho musqusha iyaga oo xaflad joogay I was pushed from behind into a bedroom across from the bathroom. I couldn't see who pushed me. musqusha agteeda ayaa xagga dambe la iga soo jiiday ilaa qolka hurdada ma aan arki karayn qofka i soo riixay Brett iyo Mark ayaana qolka soo galay oo albaabka xiray sariirta ayaa la igu tuuray Brett ayaa dushayga fuulay wuu i qabsaday wuuna i taataabtay waan qayliyay bal in dadka hoos jooga ay maqlaan waxaan isku dayay inaan iska riixo laakiin aad ayuu u cuslaa Brett ayaa isku dayay inuu maryaha iga bixiyo wayna ku adkaatay maadaama uu cabsanaa aniguna dharkayga waxaan hoos ka xidhnaa dharka lagu dabaasho oo isku dhagan waxaan u arkayay inuu doonayo inuu i kufsado waxaan isku dayay inaan qayliyo markaan sidaas sameeyay Brett ayaa afkay qabtay si aan qaylada u joojiyo tan ayaana iigu darnayd oo i cabsi gelisay uurxumo weyn ayay igu reebtay wayna igu adkeed inaan neefsado waxaan ka baqayay inuu i dilo isaga oo aan ka wadin
haddaba guddi ka kooban senatarada Mareykanka ayaa su'aalo weydiinaya Mrs. Beasley. Brett Kavanaugh oo isagu beeniyay dambiga kufsiga ayaa isagana waxa wareysanaya isla guddiga mar kale. Muuqaaladani waa dibadbaxayaasha ku sugan barxadda waxay ku sugan yihiin barxadda ka soo horjeeda Capitol Hill oo ah goobta ay dhageysiga dacwadu ka socoto. kuwa diidan Kavanaugh waxa ay ku dhawaaqayaan in aanu rumaysnayn waxa kawaanka saaran sharafta ninka uu Donald Trump soo doortay iyo qofka dacwoonaya oo ilaa iyo markii ay ogolaatay in dacwadeeda gudbiso lala beegsaday handadaado iyo xataa jirdilo loogu hanjabayay iyada. haddaba waxaynu ka naqaanaa ninkan la doonayo inuu ku soo noqdo garsooraha maxkamadda sare ee Mareykanka. garsoore Kavanaugh ninka lagu magacaabo oo ahaa xogayaha shaqaalaha aqalka cad markii uu George W. Bush ahaa madaxweynaha waxa uu gacan libaax ka geystay qoraalka dacwadii warbixintii horseetay in madaxweyne Bill Clinton lagu qaado kiiska kalsooni kala noqoshada. ilaa iminka waxa ilaa 3 dumar ah ayaa falal la xiriira isku day galmo xoog ku eedeeyay ninkan isaga ah. haddii se sanadku ogolaadaan waxa uu fariisan doonaa maxkamadda sare ilaa inta uu nool yahay. wax badan ayaana laga baran doonaa ninkan isaga. So far, she comes across as a very credible and sympathetic. ilaa iyo iminka waxay u muuqataa qof la rumaysan karo. waxaa jirtay marar la weydiiyey waxyaabihii dhacay, fariimo qoraal ah oo ay dirtay, waabayna iska saxaysay. si taxadar leh ayay hadalkeeda u dooranaysay marka uu su'aalaha weydiinayay dacwad oogaha ay xisbiga jamhuuriga keeneen. mar waxay tidhi waxaan qoray inuu Brett Kavanaugh igu riixay qolka. waxay tidhi xaggayga dambe ayaa la iga riixay si aan u saxo, ma garanayn qofka qolka igu riixay. markaas uma muuqato kaliya qof mudan naxariis, laakiin waa qof warkeedu cad yahay. ilaa iyo iminka xubnaha jamhuuriga ah ee dhageysanaya dacwadan ee raacsanaa doorashada Brett Kavanaugh waxay sugayaan inay noqoto qof dacwadeeda la aamini karo. way ku adag tahay qof kasta inuu maanta yiraahdo Christina Blasey Ford ma ahan qof dacwadeeda aan la aamini karin. Came across as a credible witness. I think it would be very hard for anyone today to say that Christine Blasey Ford is not a credible witness. waagaag bal markaan haddii aan ogno qodobo kale oo ku jira wararka caawa. ninkii ruushka ahaa ee lagu eedeeyay inuu geystay sumeyntii ka dhacday magaalada Salisbury ee dalkan Ingiriiska ayaa la sheegay inuu ahaa sarkaal military kaasoo abaalmarin sharafeed uu hore u siiyay madaxweyne Putin. sida uu ku warramay website-ka dambiyada baara madaxweyne Putin ayaa hore u sheegay in ninkaasi ahaa qof rayid ah. saraakiisha Britain ayaa diiday inay arrintan ka hadlaan. hayeeshee BBC-du waxa ay rumaysan tahay inaanu muran ka taagnayn qofka la magacaabay. basaaskii hore ee Ruushanka ahaa ee Sergei Skripal iyo gabadhiisa ayaa lagu sameeyay sunta dareemada waxyeesha bishii March. madaxweyne Trump ayaa lagu eedeeyay in uu sameynayo sheekooyin ku aadan in Shiinaha uu doonayo in uu faragelin ku sameeyo doorashada Mareykanka ee bisha dambe dhacaysa. jariidada dawladdu kontrolsho ee Global Times ayaa sheegaysa in eedaha laga soo jeediyay xarunta qaramada midoobay ay yihiin kuwa kutrikuteena. wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha ayaa sheegay in Beijing aanay wax faragelin ah ku sameynin arrimaha dalalka kale. maanta waa maalinta caalamiga ah ee dalxiiska. dawladda Soomaaliya ayaa diyaarinaysa qorshayaal ay doonayso in ay ku soo jiidato dalxiisayaasha gudaha ah ee Muqdisho. waxaa badda lagu diyaariyay doomo dalxiis iyo ilaalo xeebaha ku sugan, balse arrimaha amniga weli waa caqabad weyn oo ku horgudban. Axmed Xaaji Xasan ayaa ka warramaya. waa maqaayad ku taalla xeebta Lido ee magaalada Muqdisho oo bilowgii 2016 lagu qaaday weerar lagu dilay ugu yaraan 7 qof. halkan waa mar kale iyo xeebta Lido iyo maanta sida ay u eg tahay waa goob ay shacabka ku damaashaadayaan iyadoo sanado weeraro argagixiso ay dhacayeen. haddana jimco kasta kumanaan qof oo ka mid ah dadka reer Muqdisho ayaa dalxiis u soo aada halkan. maamulka gobolka Banaadir oo isku dayaya inay ka faa'iideystaan xaaladdan sida caadiga ah ku soo noqonayso iyo sare u kaca dalxiiska dadka Soomaalida ah ayaa doonayo in nawaaxigan la maalgashado. balse dadweynaha ayaa si xiiso leh uga sii horeeya tallaabooyinka horumarinta dalxiiska ee gudaha. marar badan horta badda micnaha badan waa badda Lido gaar ahaan ku taala degmada Cabdicasiis waa soo xiisaa badana waxa imaada 2 isbuuc ka bacdi isbuuc kamid ah. inkastoo aan jecelahay micnaha asxaabina micnaha meesha marka asxaab leedahay ay macaan tahay waxaan ku soo aadaa maalmaha jimcaha
ومالك يقول يعني ما ضبط اللي ذا إن أصحاب بدون كنت معادني بس وضليس تجان ما أنت وحياة بدن أنا أركي جري إن كستو أنا ولي بدن احتجنين لكن حبتي ولي شوقة وحرجيني أسبوع دبنينا نحتاج dalxiiska noocan ah waxa uu farxad geliyaa kumanaan Soomaali oo jimcaha kasta isugu yimaada xeebtan hase yeeshee dawladda waxay filaysaa in la sii joogtay arrintan si loo hormariyo dalxiisayaasha gudaha ka imaanaya iyo kuwa ajaanibta dibadda ka imaanaya balse amniga iyo nabadgelyada dalxiisayaasha waa caqabada ugu weyn ee wali dawladda ay wajahayso mararka qaar xeebtan waxaa laga maqlayaa rasaas dhacaysa oo hakad gelinaysa sawaxanka dadka damaashaadaya waxaana naloo sheegay in lagu kala ceelinayo dhalinyarada isdagaalaysa ama lagu kala ceelinayo kuwa halista gelinaya dadka sida nabadgelyada ah u dalxiisaya arinta amniga runtii waxa si wanaagsan halkan u jooga ciidamada badda ciidanka badda Soomaaliyeed Mariniska ayaa halkan jooga oo qayb ka ah runtii waxay ka shaqeeyaan amniga xeebtana way ka shaqeeyaan badbaadada shacabkana way ka shaqeeyaan sidoo kale isla ayagoo ciidanka ay ka shaqeynayaan halkan haddana waxa jirta unug ciidamada booliiska ka tirsan oo iyaguna xeebaha qaabilsan amnigooda oo iyaguna halkan ka shaqeeya mar walba si joogtaana uga shaqeeya Septembertii sanadkii hore ayay Soomaaliya xubinta 157 ka noqotay laanta dalxiiska caalamiga ah ee qaramada midoobay si kastaba amniga wali waa caqabada ugu weyn iyadoo ay dhacayaan weeraro lagu qaadayo hoteelada iyo maqaayadaha Muqdisho balse taasi ma aysan hor istaagin dalxiisayaasha gudaha ee jecel in maalintooda ay ka nasanayaan shaqada iyo waxbarashada ay ku qaataan xeebaha caasimadda Axmed Xaaji Xasan BBC Muqdisho wali waxa inoo soo socda oo aad qaybtaba ku daawan doontaan dooda caawa oo ku saabsan madluuca heybsooca wanaagsan mar labaad wali waxaad daawanaysaan caawiya caalamka waaniga ah Maxamed Cabdi Xalaari balladina xasuusiyo qodobada caawa wararkeena ugu waaweyn dawladda Soomaaliya ayaa daah furtay manhaj cusub iyo waxbarashada dugsiga hoose oo bilaash ah taas oo ay ka faa'iideysan doonaan ku dhawaad 15,000 oo arday ah ninka uu madaxweyne Trump u magacaabay maxkamadda sare Brett Kavanaugh oo fadeexad farax xumeyn ah lagu soo eedeeyay kulanti wanaagsan daawadayaal haddana haddii aanu u gudubno doodeena qamiista barnaamijka caawiya caalamka ee BBC Somali TV caawa doodeena waxaanu ku lafaguraynaa heybsooca iyo cunsurinimada oo arrin in muddo ahba dhaqanka Soomaalida qayb ka ahayd haddaba waxaa muddo dheer soo jiray in dadka la sooco loo geysto dhibaato jireed iyo mid maskaxeed mana muuqato ilaa iyo maanta mid laga gudbay inay tahay arrintaasi haddaba maxaa hortaagan Soomaalida inay isbedel dhab ah ka gaaraan dhibaatada heybsooca iyo cunsurnimada barnaamijka caawa waxaa marti inoogu ah injineer Yarow Shariif Aadan iyo Barqad Jaamac Batuun oo jooga magaalada Hargeysa injineer Yarow wuxuu la joogaa stuudiyaha haddii aan ku hormaro Hargeysa Barqad sida aad la socoto waxaa dhacay dhibaatooyin aad u waaweyn tii ugu dambeysay ee magaalada Muqdisho ka dhacday wiil gabar calmaday oo dabadeedna adeerkii ama waalidkii loo dilay haddaba waxaan doonayaa in aad noo cabirto adigu Hargeysa joogtaa inta aad ka warhayso qofka gabooyaha ama jareerka ah heybsooca ama takoorka uu maalin walba la kulmo oo sida joogtada ula kulmo haddii aad noo cabirto halka si aan uga ambaqaadno dooda caawa bismillaahir rahmaanir rahiim waa salaamayaa madaxda iyo mas'uuliyiinta TV-ga runtiina waa fursad aad u cajiib ah waxayna qayb ka tahay adeega ummadda Soomaaliyeed ee afka Soomaaliga ku hadla aad u fidinaysaan hadba wixii bulshada dhexdeeda ka dhaca inay si fiican u soo tabisaan inta markan ka yimaado mahadnaqa iyo furitaanka waxaan u gudbiyaa qadiyadda la weydiisay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan mashaakilka haysta haday tahay colaadaha dhexdooda ka huran haddii ay tahay dhaqaale xumada haddii tahay isnaca dhexdooda haddii ay tahay qaxoontigii dunida ku noqdeen hadda maanta dee Soomaaliba laga hadlo inay sunta dunida noqdeen waa cuqubooyinka ummadda laga gelayo ayaa qayb ka ah marka haybsooc dee way dhacdaa dunida way ka dhacdaa waxay ka dhacdaa maxay tahay dalalka ay joogtaan ama Yurub ha ahaato ama Ameerika ha ahaato ama waxaan la isku haybsoocaa aragtiyo waxaan la isku haybsoocaa diimo waxaa la isku haybsoocaa midab
waxaa laysku haybsoocaa dee waxa weeyaan waxyaaba kala duwan oo fara badan oo nolosha taabanaya laakiin teenna gudaha markaynu kusoo noqonno soomaali meel kastoo joogto waxay isku wada khilaafsan yihiin danahooda khaaska ah laakiin halka qadiyadeed ay ka midaysan yihiin waxa weeyaan ayna isku khilaafsanaynin waa dhibgaadhsiinta dadka la diinta la deegaanka la walaalaha la midabka la aragtida la luuqada deegaan kastoo Soomaali ay degto ceebtaasi kama reebana waa aragti ay ka siban yihiin oo atawaasow bihi qolada kufaarta hay'ada Ilaahay subhanahu wa ta'ala walaha war miye isku dardaarmeen hadallada noocana marka dawa mashaakil runtii in la koro oo ummadu korto oo bislaato oo dunidu soo u socotay in la arko oo yani ma aragtay Soomaaliyeena maskaxdeeda iyo ma aragtay aan korayn baa muuqata waa mashaakil runtii u baahan siyaasad weyn marka waxaan baan ku ururinayaa marka de Ilaahay laga arin qaadan waayo de ayaan darooyinkan baa dhacayaan u arkayno marka de Ilaahayna in loo noqdo halka geeska keegi doonaa waa maasantahay walaal haddii aan yarow engineer yarow ku soo noqdo adiga saddexdiina hadda caawa ila joogaba dad aqoon-yahana oo xilal badan soo qabtay oo laga yaabo in aan oran karno maahidiin adinka dadka ay sida tooska ah ee u taabtaan waxa la yiraahdo heybsooca ama takoorista sidaas ma dhihi karnaa engineer yes waa dhihi kartaa waa jirtaa oo adiga si toos ah kuma taabata soo ma arintan waa taabateen way taabateen maxay taabanay ii sheeg sidee ku taabataa adiga ma yani personal ma u hadlaayo ummad baa meesha tan aan matila aan u doodaa iyo goraale aan raba inaan ka hadlo waxay ay tahay haddii xuluul jiroon xuluulkaygaan u aadiyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto iyo caalamkaba taas ma ka heli karaa waa maasta ku soo noqon doonaa taas waxaa nagu soo biiray Professor Dalha oo ah xildhibaan ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya Professor wacyigelin way socotay ilaa muddo dheer wax badan waa laga qoray meelo badanna waa laga hadlay ma jirta si xeer ama sharci dastuuri ah oo arintan lagu wajihi karo bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore soo aad salaamaya BBC khiyaarta sharafta leh ee wala jirta khadkane waan wada salaamaya gabi ahaan dastuurka marka la eego qodob ka mid ah qodobadiisa inay xusayaan in dadka Soomaaliyeed ay ka siman yihiin xuquuqda iyo xorriyadda iyo siyaadada wadanka ee aan lagu kala sareyn sharci ahaan uu qorayaa laakiin xeer u gaar ah oo hadda haybsooca ama nidaamkan discriminationka ku dhisan waji kastaba ha lahaadee ee yaala oo lagu dhaqmayo ma jirto taagan in la sameeyo midka wadamadan aan joogno aniga hadda ka warhay Ingiriiska wuu jiraa qofna kuguma heybsooci karo wax aad tahay maxaa ka hor taagan inaad samaysan adigu muddo dheer ku jirtay xildhibaanada baarlamaanka waa maadsan tahay wax kastaba fulinta ayaa waxay u tahay miftaax Soomaaliya hadayba dad muslim ah iyaga sidii alle diintiisa uu ku xusay ee iyaga ay dhab u aaminsan yihiin dastuur iyo xeer iyo maba loo baahdeeno waxay qaadan lahaayeen ku dhaqankii aayadda iyo xadiidkii rasuulka ee mamnuucayay waxa la yiraahdo midabta koorka ama heebsooca oo aayado fara badan ee rasuulka sallallahu alayhi wasallam ee diinteena nagu soo gaarsiiyay quraanka axaadiid fara badanna uu nooga tagay marka dadka islaamnimada sheeganaya aan dhaqankeediina aanan wadanin taa unba ayadana ay qayb ay ka tahay nin diintiiba u dhaga nuglaan waayay dastuur iyo xeerna inuu hadda ka xishoonay u malayn maayo waa runta laakiin diinta laftigeeda waxay u baahan tahay cid fuline oo dhaqan kalisa dadka guryahooda jooga lama dhihi karo isaga nuglaada yarow haddii aan su-aal ku weydiiyo sababta arrinta sharciga u weydiiyey inta badan waxa markii sharci laga dhigo dhaqanka way ka baxdaa dhaqan ma sii ahaato dhaqan jira haddii mar sharci laga dhigo oo la keeno waxyaabo looga hortegi karo way baaba'aan ma ku muuqataa in dhankaas laga eegi karo oo waxani sharciyo dastuuri ah in la sameeyo ay tahay oo takoorka looga hortago runtii waxa weeye
aan kuu sheego horta hadalkii aan rabay inaan iraahdo marka horta Soomaaliya haddaan eegno 60meedii ilaa hadda madaxweynayaashii soo dhaafay ilaa haddaba isku si ay u arkaan faquuqi waxay u arkaan si caadi ah ma dhici karto annaga waxaan ka tirsan dadka Soomaaliya baan tuuda dhibaatada aan sheegayno tooyar ma aha faquuqa ka jiro Soomaaliya waxay la mid tahay ama ka sii xun tahay kan South Africa haddaan caddeeyo kan South Africa waa qornaa laakiin Kenya ma qornaba waayo meel kasta haddaa eegtid ka dhig qabaa'ilka naftigooda qaarkooda waxaad arkaysaa qabaa'ilka koonfureed waxaad arkaysaa digil mirfla arkaysaa waxaad arkaysaa reer baraawad arkaysaa waxaad arkaysaa maaragtay biimaal baad arkay kanad arkay jineed arkay dad jareer oo degan oo deegaamo ku leh haddii jareernimo la sugu yimaado wax xuquuq ay leeyihiin ma jirto haddii abood qoobsi la yiraahdo nimankaas unbaa wax la siiyaa deeq waxbarasho hadday timaado hadda iskuul soo lama furin nimankaas agtooda waxba kuma laha marka arrinta meesha ku qarsan haddii aan weydiiyo Bootaan adiguna nin garyaqaan tahay Bootaan sharciga ama tallaabooyin ay u dhimanaysaa hadal waxba ma tarayo iyo in lagu soo celceliyo wacyigelin arrintan waxay u dhimanaysaa tallaabo in la qaado wacyigelintina laga daal sida uu sheegay Talxa dadku diintoodii aysan ku dhaqmaynin haddaba marka taasna eegto dhaqaalaha ee lagu kala qaybsan yahay bulshadan kala qaybsanta waxbarashada waa lagu kala qaybsay ayadan eegto sidee arrintan looga hortagi karaa runtii waa su'aal muhiim ah professorka soo galeen isagana marka la salaamo dad Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa Soomaali kal xishoota ma kal baqata bay leedahay haddii sharci la sameeyo iminka de Mareykanka oo kale markii qadiyadan kacdoonada maxay tahay 1963 ninkii Martin Luther King uu kacdoonkii xuquuqda maxay tahay madaniga uu bilaabay dadka madmadow de baarlamaanka ama senadka Mareykan waxay ansixiyeen xeer la yiraahdo Discrimination Act maxay tahay takoorka xeer ka soo horjeeda marka halkan de laftirkeeda Somaliland oo kale dastuurku qodobka 8aad firqadiisa koowaad ee talabaad waxa leedahay iyadoon ummadda Somaliland aan lagu kala fadilayn midabka muuqaalka diinta jinsiga deegaanka waxay sharciga hortiisa ku leeyihiin xuquuqaad siman waa qoraal laakiin fulin ma laha wixii waa la qurxin karayaa laakiin awoodda fulinta cidda shacabku u igmadaan waa xukuumadaha korka aan laga dhayo hoos loo galayn marka la leeyahay dadku waa ku siman yihiin ma ahayd in dadka la sii kala qaado la yiraahdo dadkan dhib baa haysta gaar ah ha loo sameeyo sharciyo quseeyiga exactly waa siyaasad qaran baa la national policy golaha wasiirada ama xukuumadaha yimaada way sameyn karayaan maanta maxaa dhibtu ka taagan tahay Shabeelle webigeedii baa fataamay siyaasad biyo xidheen oo gobolada dalka loogu sameeyo Soomaaliya oo kale haddii la yiraahdo maxaa mashaakilku taagan maanta hooyooyinku waa umul arooraya siyaasadda caafimaadka kadibna actiba laga sameeyaa waa la baaskareeyaa barqad aad iyo aad ay u maasan tahay Talxa iyo adinkana waa idin mahad celinaya waqtigaana soo qabtay xasuusnow wararka ugu dambeeyay ee BBC Soomaali waxaad ka heli kartaa bbc.com/somali intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka caawiya caalamka waad ku maasantiin daawashadiina intaan mar kale dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo